Found what I've been looking for. way u fududahay mar inaynu kulannin sidii baan ayaankiyo calabkow sawraya rabbigay ma eexde sidii baan ammaanada ebe ugu kalsoon. Salaamullaahi calaykum. halka aad nagala daawanaysaan waa Kaab Official. maantay barnaamijkeena waxaan ku falqayn doonaa ciyaarihii dhacay ee Champions League ee ugu dambeeyay kulankii Arbacada iyo habeenkii Khamiista. waxaa ila joogay maanta barnaamijka iigu martay saaxiibkayga Cabdulqaadir. waxaa kaloo barnaamijka ila qaabayn doona saaxiibkayga Mr. Caaqil. barnaamijkeena maantay waxaan ku falqayn doonaa kulamadii Championka ee dhacay, kulankii oo Barcelona iyo Manchester, kulankii Juventus iyo Ajax, kulankii mucjisada dhigay ee Tottenham iyo Man City, kulankii Liverpool iyo FC Porto. waxaan ku wareejinayaa saaxiibkayga Mr. Caaqil si uu wax uga dhaho asigana kulamadaas. ومحسن yahay saaxiibkay Rashka Barri sida waxaan barnaamijka noogu furfuray iyo sidoo idin sheegay qodobka maanta aan ka hadlayno waa sportiska. sida hore idin kugu sheegnay ama backgroundka YouTube channelkeena ku xusan waxay sheegaynaa inaan ka hadlayno qodobo aad iyo aad u xiiso badan sida sportiska, madadaalada, diiniga, arrimaha qoyska, arrimaha caafimaadka. qodobka maanta aynu doonayno inaan ka hadalno falanqeeno ninkan garabkayga fadhiyo Daweeye Faarax oo asna doonayo inuu nolol falanqeeyo aynu soo dooranay aan rabno inaan waxyaabo badan ay idin ka dhahno waa sportiska. sidaan ognahay sportiska waxaa ka dhacay natiijooyin badan oo lama filaana. kulamadaas aan doonayna inaan taariikhoodii waxyaabo badan aan ka soo dharaandhirino aan idinkaga sheegno waxaana igala qayb qaadan doono saaxiibkay Daweeye Faarax. ku soo dhawow Daweeye Kaab Official. waa mahadsan saaxiibkay Caaqil. sidoo kale Rashka Boy oo ku dhawaad xaqiiqatan barnaamijka Kaab Official. waana barnaamij qurux badan bulshooyinka Soomaaliyeed aan soo dhaweynayna. waa dhawahay saaxiibayaal. waa mahadsantihiin saaxiibkay Mr. Caaqil iyo saaxiibkayga Daweeye sida ay barnaamijka noogu soo dhaweeyeen. waxaan rabaa inaan barnaamijka hore u guda galno. waxaan ku hormari doonaa kulamadii habeenkii Arbacada dhacay taariikhdii 16-kii kulankii. waxaan ku hormari doonaa Barcelona iyo kooxda Manchester United oo ay ku awood roonaatay 4-0 kooxda Barcelona ay ku soo baxday isku celcelis aggregate-ka. waxaan ku hormari doonaa saaxiibkayga Daweeye ka waran kulankaas sida uu u dhacay kooxda Barcelona iyo kooxda Manchester dhexmaray. والله نيو ارتجيمكاس جيم adag waa xaqiiqatan sidii loo filayay game u dhacmayaan aniga ma aaminsan in Man United oo team weyn in labada kulan loo diidi doono gool. sidoo kale 4 gool dhagta dhiig loo dar doono. si kastoo ay dhacday wax walbana waxa isku dhigay aaminsanay in Barcelona ay haysato Leo Messi. ciyaarta doo Messi banaanka ahaan la Barcelona United waxay ahaan lahayn kuwa siman oo diyaarin karo, laakiin mar walba Messi ayaa saddexaad oo nin ciyaarta wax walba xakameyn karo, maamul karo, go'aamin karo natiijada. marka kulan weyn waa aad kun la ku raaxaysan oo inkastoo gameka dambe oo Barcelona United ay comeback isma kartaa lagu dhigayo 3 gool laga sii dhaliyo 1 gool 4 gool eber aggregate looga adkaaday. kulankaas haddii aan ka hadalno kulankii hore lugtii hore ee lagu soo dheelayay kooxda Manchester United garoonkeeda wuxuu ku dhamaaday 1-0 sida aan wada ognahay. kulankaas kulan ay kooxda Manchester si fiican ugu dagaalantay banooniga oo ay si fiican ula dheeshay ayuu ahaa, ma ahayn kulan goolal badan laga dhaliyay. kulankan oo lagu dheelayay garoonka Barcelona Camp Nou wuxuu ahaa kulan aad looga awood roonaa kooxda Manchester United oo ay muuqatay awoodda Barcelona. maxaa sababay ayaa is dhihi kartaa?
والله hortan ilaa hadda waa waxyaabaha waxa sababi karna waxa waaye kulanka hore xaqadisa ognahay Messi Leo Messi ciyaarto aad ay ugu jiftay oo booni fiican ma dheeleenin dhaawac ka soo gaaray Smalling oo dhaawacay ciyaarta fiican ma dheeleenin oo ugu ciyaarta dambe wuxuu sameeyay ninka la yiraahdo Messi soo dagaalamay in shanta gudood uu laba gool isku si ah isku qaab ka dhaliyo kooxda United sidoo kale waxyaabaha sababi kara xasleenahay Barcelona oo macnaha ka caruurtay United waxa dareem karnaa social media isbuucaas waxay u haysatay si wali rashkow oo waxay oranaysay comeback asma karnaa Barcelona PSG ma hasan dareemino marka Manchester waxa oran karnaa ayada in sida loo durduriyo waxa u soo biliyo Messi iyo boonboonta badneed ee Manchester United boonbooni iyadoo awood fiican leh saawna xaqatan haddii aad markan siiyo saaxiibkayga caaqil asigana fikirkiisa ka waran caaqil sidee u aragtaa labadaas tiim ee aad ku waaweyn kulanka aad xasaasiyada badan ee dhexmaray rashka horta hore ama santaaniyow adoo ah kulanka daadiyaha barnaamijka Cup Official xaqiiqatan maanta waxaan ku sharafnay barnaamijka Dawiye Faarax waxaan ku falanqeynaynay sportska kulanka laga hadlayay wuxuu ahaa Manchester United iyo Barcelona oo kulan aad iyo aad u xiiso badan ahaa markii la soo gabagabeeyo waxay noqonaysaa farqiga Manchester United iyo Barcelona u dhaxeeyo wuxuu ahaa Leo Messi oo kaliya sababtoo ah Barca waa team Manchesterna waa team laakiin Leo Messi ayaa ah ninka u dhaxeeyay labada team go'aamiyaha kulankan ah walow Manchester lugta koowaad ay soo adkeysay sida laga filayn in noqotay laakiin lugta koowaad waxaad moodaa Camp Nou markii dhax gashay inuu Camp Nou ay ku naxday garoonka dhexdiisa ee ku naxday iyo Messi muuqaalkii oo la cajiibka ah oo habeenkaas la soo baxay oo dhowr daqiiqado ugu horeeyay kulankan oo Manchester United dhan uu ku kala baxay taasna waxa uu can dabacsanaanta difaacada dambe ee Manchester United iyo David De Gea oo qaab ciyaareedkii fiicnaa looga bartay aan soo bandhigin Pogba gogodoodka asagana Manchester United oo aad moodaba inuu diyaar u ahayn inuu Manchester United wax u qabto Fred oo maxay to asagana la soo baxay qaab ciyaareed liita Ashley Young Philip Jones rumaantii ciyaartooyda dhan ee daafaca dambe ayaa dabacsanaan ka timid taasna waxay suurtagelisay in daqiiqadaha ugu horeeya Barcelona iyo Leo Messi Manchester United ay ku kala baxaan marka farqiga tiin kulanka wuxuu ahaa Leo Messi oo kaliya ma la dhihi karaa mideeda kaleeto maadaama Manchester United ay haysteen dhaawacyo dadka maqnaa sida qadka dhex Hareero kaleeto oo nin aad loogu tashta ahaa qadka dhexeeto Lucas Shaw oo asigana garoonka uga maqnaa ganaax oo difaaca dambeeto aad u dhisi jiray garabka tareega iyo Jones oo asigana dhaawac asagoo ku dheelay ma la dhihi karaa dhaawacyadaas iyo dadkaas ka maqnaa ayaa keeni kara guuldarada Manchester United horta ma santahay waa mid loo baahan ayadan in la fiiriyo laakiin dadka dhaawaca ah ay maqnaashada lagu tabayo kulanka hore xitaa way maqnaayeen marka laga tago Lucas Shaw laakiin kulamada kale xitaa Matic oo ah ninka qadka dhex Manchester United marka Pogba laga yimaado sayga kala wada burburiya Hareera oo asna ciyaartoy kale oo aad u tayo fiican ah labadaas nin way maqnaayeen laakiin farqiga wuxuu ah Lucas Shaw oo kulanka hore dheelay oo kulankan ka maqnaa marka burburka waa mid meelo badan ka soo dilaaca taasna waxay tuutugelisay in Barca iyo Messi ay baashaalaan kulankaas haddaan halkaas ugu gudubno waxaan gudageli doonaa kulankii kaleeto ee aad ku xasaasiyada badana asigana oo mucjisada ay ka dhacday lala yaaban yahana sida ay u dhacday kulankaas waa kulan lisdhahay waxa aad ugu raaxaysan doono ugu baashaali doono ZR7 iyo kooxdiisa Juventus ma lisdhahaynin marnaba Ajax ayaa soo bixi doonto sida ugu cadcadeed isku aadka markuu dhacay iyo ciyaarta kulankii hore ka waran haddii aan ku soo dhaweeyay saaxiibkayga Dawiye kulankaas sidoo u dhacay waa master rashka wallahi horta xaqiiqatan geemkaas wuxuu ahaa geem u dhacay si aan filin xaqiiqatan dunidana ay la hadla yaabantahay waana marka la eego waxaan karaa mucjiso weeyaan wax dhacay magical ninka la yiraahdo Ronaldo-na wuxuu ahaa nin ku fashilmay geemkaas oo sidaan dareemeynay wax dhaqdhaqaaq fiican ma sameynin kabtanka Portugiiska walow ciyaarahan weyn mid kamid ah aan oran karo haduu ahayn waa kii ugu fiicnaa dunida soo maray waa mid kamid ah kuwa fiican dunida soo maray Juventus marka guud ahaan Ronaldo rajadiisa Ballon d'Or meesha ku soo gabagabowday waxa ku horeeyna waxa waaye Juventus oo hadda kadib inay cirsato Italian Cup iyo Serie A kaliya marka la eegana Ajax xaqiiqatan aniga Ajax waxaan oran karaa waxay u qalantay xitaa inuu guuleysato Champions League sababtoo ilmaha soo ciyaaran box kubadda wadayaan bas la yaab leh isaas ku dhufsanayaan macquul maahan kubadda kalsoonida loo goonayo sida loo baasanayo inaba caadi maaha kooxda kubadda cagta Ajax waxaan rajaynayaa in ay tagi doonto finalka waxaan rajayn doonaa inay ku guuleysan doonto kaabka haddii aan halkaas ugu soo gudubno saaxiibkayga Dawiye
waxaan siin doonaa asigana fikirkiisa caaqil inta aan fikirkiisa siin ka horna waxaan rabaa inaan labadooda saaxiib midba su'aal weydiiyo oo ah nin walba tiimka uu taageero waxaan ku hormari doonaa daweye alaabta aniga kubadda cagta marka la eego sida hal tiim aa ku leeyahay kubadda cagta waana kooxda kubadda cagta Arsenal way jiraan tiim kale oo soo raacay Real Madrid oo kale waa taageeraa Real Madrid Spain marka la eego laakiin kooxda taageer sida saxda u taageero waa The Gunners kooxda Arsenal guduudka Talyaanigana Talyaaniga ma xiisay kubadda laakiin Talyaaniga marka la eego kooxda AS Roma ayaan ka taageeraa Talyaaniga xidiga kubadda cagta ku leeyahay ninka ka fiirsado superstarka Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo kabtanka Portugiiska aad iyo aad ninkan waxaa waaye waxaa la dhihi karaa wuxuu aad u taageeraa tiimam aad u waaweyn oo taariikh ka sameeyey caalamka laakiin sida aan ognahay xilli ciyaareedkan labadooduba Arsenal maba ka soo qayb galinba Real Madridna waa laga reebay waliba si xun oo falxumo ayaa looga reebay AS Roma maba ka soo qayb galinba ka waran dhibaatada ku imaatay tiimka aad taageertay iyo ninka xidiga ku leed kubadda cagta adduunka والله هرتني هو جامبيون ليج يلا أنا هرت وحي سو مقاو صابته 16 سنة قدام بيسي جامبيون ليج دعوضها كقوليستان وها نعكل مركل أرسنال وكله هذا أرسنال وين سنة كورة إن أرسنال وينجر وكتجي كوحدة نروح كصعود حقيقة ودبلس مركا سنة كان واحد رجينا توب فرض ودي على عشان أكسب قبل أقولك اسمين اللي أول واحد أركي جرتين لحية طبعا إن توم نقول أجر جد بارمنخ نوجر عجرتي سديد مرة الدرو ونقدر جن لكن سنة كان واحد رجينا إن حقيقة إن واحد أقولك كين دون جاب ليج رومانا ووجد روما سنة كورة واحد حسست بارسلونا مدة كل كتير صدق بقول يقدر أفرنت حق سؤال كانت بارسلونا صدق يقدر رودري تيم وين تجارة لكن واحد رجينا إن شاء الله سنة صعدوا إن مت كوحية كم يقول صدقت إن شاء الله waxaan siin doonaa saaxiibkayga Mr. Caaqil asigana nin walba waxa ognahay oo kubadda cagta fiirsado in uu koox taageero ma jiro nin kubadda cagta fiirsado kooxna aan taageerin ama shakhsi aan kubadda cagta ku lahayn saaxiibkayga Mr. Caaqil aan siin doonaa dhawaasata rashka markale raantii kulan qurux badan inaan falanqeyno sportiska teamka kaliya aniga hadda aan taageero dunidana aan ka taageero waa teamka facaweyn ee Barcelona oo Manchester United ku raaxaysatay Talyaani marka la raano waxaan aad u taageeraa ciyaarooda aan kala socdaa teamka Juventus marka labadaas waxa moodaa teamka Juventus in jab soo gaaray habeen hore Barcelona ay raaxaysatay marka waa soo dhaweynaya kulanka hadii aan guda galno falanqeynta Ajax iyo Juventusna wuxuu ahaa mid runaantii dadka khibradda ciyaarta aad ugu xeel dheer oo falanqeymaha badan sameeya in Juventus balaaye kale ee la soo laaban karto sababtoo ah kulanka koowaad waa loo jeedo inay kubadaha halis ay sameeyeen counter attack halis badan weerar xoog badan ay wadeen iyadoo sidaas tahay ayaa hal ku soo galan marka dadka wax falanqeeya ee khibradda aadka sportiska u leh waxay ogaayeen in Ajax balaaye kale ay la imaan doonto kulanka labaad walow dadka qaar ay isdhaayeen Ajax marka kulanka Juventus imaado waa mid barxi doonto ciyaarihii banooniga dhan oo ku dhumi doono sida Manchester United oo ku dhacdo kale laakiin waa kuwa la soo baxay dadka qaar sida ay ka filayeen kubadaha la surnaantii Juventus 5 ilaa 6 waa laga dhalin karay kubadaha ayaga waxa dilay ciyaarkii in kubada badan ay ku qasaariyeen markii diilanta ay imaadaan marka Ajax way u qalantay inay soo baxdo Juventus inay raarto u qalantay gabagabadina waxa leenahay marka Real Madrid iyo Ronaldo isku baahan yihiin sababtoo ah Real Madrid 16 ku soo hartay Ronaldo واركتا ماشو كهري وقتي وهر وقتي دي معجزين او سمين جيري او تيمامكي او كم باغ لياب كل او سمين جيري لكن هبين هوري او ku guul dareystay inuu kan baagaas Juventus oo sameeyay marka waa ma santaar Mr. hadii asigana markiisa la kaftamo waxa isku soo aaday labada team oo ka taageeray Ingiriiska iyo Spain waa Barcelona iyo Manchester United waana aragnay sida guuldarada ku dhacday Manchester United guuldaro aad weyn waxaan weydiin doonaa labada shakhsiga markii laba team oo taageero oo isku soo aadaan mid ay u go'aa tee u go'day adiga habeen hor markii isku baxayeen راتي رشكا سؤالات بيفسر سؤالات بيفسر ويديسي او مانشستر يونايتد iyo Barcelona markii ay dheelayeen sida iska cad mar walba wax go'ayso teamka natiijada la imaan karo oo meel tigi kara loo go'a Manchester United marka waa mid dhaawac ayada dhanba si kale macnaha aysan u firfircooneen marka teamka aan u go'ay mar walba guul inay guuleys dadweynaha ay filayeen anigana aan filayay waxa teamka Barcelona haddii aan mid ku soo xasuusiyo subaxdii waxaan is aragnay intuusan dhicin kulanka habeenkii markuu dhici subaxdii aan is aragnay waxa igu tiri Manchester United waa dhiigay ayaan taageeri doonaa goorma ka baxday حاجر
ayaa waxaa jira oo iska join oo iska kaftana ma fahanti Manchester United iyo Barcelona haddii la falanqeeyo marka xaqiiqada laga hadlo waxaa jira wax la kaftan iyo wax xaqiiqa marka xaqiiqada laga hadlo dadweynaha buu isku ogaa waxa soo baxay laakiin Manchester United waxa waaye waxa rabay xitaa inay goolal iska dhaliso ilaa 2 gool ay la timaado si hadhow goolalka calanka ay u hesho ee la dhaho Manchester United gool ay dhalisay waana laga badiyay laakiin mid waa dhiciis wuxuu ku guul dareystay in shabaq ay soo taabato laakiin boqolkiiba boqol Manchester United marka la dhaho championka kulamadii ugu dambeeyay qaybaha lagu haro Arsenal way kaga dhaantaa waayo Arsenal ogid in homi ay 10 gool la geey jiray oo Allianz Arena tii ku soo dhacday championka kulamo oo taariikhaha adduunka gala waaye baad lagu madheelo 10 gool la geeyay tashko ninkan waxa waaye team attacking waxa loo wadaa in Arsenal oo caadi u tagay anigana maanta marka inta la fadhiyo Arsenal waa taageeraa mooyay Arsenal iyo Man United way ismiin aniga waa laba team marka inta fadhiyo oo isman oo mid uu ma yaxan karo midna kama yaxan karaan marka la Arsenal iyo United si saxda ah Champions League waxa taariikh kale kooxda kubadda cagta Manchester United Arsenal wax taariikh kuma laha Champions League oo kuma guuleysan sanadkii u dhawaan 2006 waa oo sanadkii ugu macquulsan ku guuleysan karnay mid kale rashko inta ugu dhaafin teamka taageerna waan weydiis waa ogaanay adiga markaa aan ogaana jeclaan teamka taageertid waa aniga teamka aan taageero hadii aan gada idin sheego waxay noo noqon doontaa maadaama aan barnaamijka xariirnaa aniga aan dood ku jirin waa idin dirmir doona gadaal aan kaga sheegi doona laakiin saaxiibkayga masar aqal hadaa marka la ku celiyo waxa dhacday kooxda Barcelona ayaan jeclaa lahaa inay badiso laakiin ka waran hadii Manchester United ku badileed si kugu ahleed yo Manchester hadee badin lahaydna liyaabka dunida ee ku dhigtay aniga nafaantiina midaas ay dhigi lahayd laakiin mar walba waxaan aaminsanaa hadii Manchester inay saxarayto sababtoo ah Barcelona iyo balaayadeeda sanadan waa mid iska cad Leo Messi aad ay u kacsan yahay waa taqaana sanadan ninkaas u kacsan yahay inuu waxyaabo badan oo kubadda cagta uu ka sameyn karo that's why marka aan loo filaynin in Manchester Barcelona ay ka soo gudubto ma dhicin hadii ay dhici lahaydna marka Manchester waxay noqon lahayd ma sameyn lahayn layaabkii ay sameysay Ajax iyo Juventus ka badan ma sameyn lahayn waa team ka sii weyn Ajax marka la fiirsho marka layaab dhaxana ma sameyn lahayn laakiin meesan dhicin waxa dhacday sida adduunka ay filayeen ay Barcelona soo baxdo halkaas ayaan barnaamijkeena ku soo goobin doonaa waxaan uga soo dhiiban doontiin su'aashiina jawaabteen xagga hoose ee commentiga saaxiibkii Mr. Aqal ayaa noo soo gabagabi doona mahadsan tahay rashka baari daweeye faarax oo barnaamijka martino ugu ahaa oo falanqeymo badan oo sportiska ku saabsan aynu ku sameynay sida balantu inoo ahaydba waxaa mar walba aan soo qaadan doonaa mowduuc aad iyo aad u xiiso badan kana mid ah mowduucyada anaga backgroundkeena YouTube-ka inoogu xusan su'aasha baari oo na weydiiyey oo ahayd waxaa sheegtaa xubin ka mid ah xubnaha jirkaaga oo markii ay wasaqowdo cadaanaysa runaantii waa su'aal aad iyo aad u muhiimsan anagoo isku duuban baari daweeye faarax anigoo ah caaqil inta kulan midkan la mid aan ku kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo amaana Allah waxaan idinka rajaynaynaa qof walba arka videoga inuu subscribe saaro like share comment asxaabtaadana aad la wadaagto hadii barnaamijka uu qanciyo ala mar walbana inuu la dultugnaato oo aan ugu kaabto waxa la yiraahdo subscribe-ka si waxyaabo badan ay idinku faa'iideeno bulshadana aan wax la wadaagno waa mahadsantiin inta kulan mid lacaynkaan ku kulmi doono waa bahdii Cup Official oo idin leh sidaas iyo amaana Allah